waa munaasabad soo dhawaanay sidoo kale caleemo saar ahaa oo loo sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo loogu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaduqa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale marti kale oo lagu casuumay munaasabada. ugu horeyn ayaa waxaa munaasabada ka hadlay ujeedkeedana ka warbixiyay xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. caawa waxaa la siyaasadda la iska dhaafaa la iska sheekaysto marka madaxweynaha waxa uu talagalna caawa inaan siyaasadda ka nasino maadaama process dheer oo soo maray oo siyaasadeed oo waqti dheer qaatay wuxuuna ku soo aaday runtii barnaamijkan waqti gabagabo fiican oo ku dhamaaday barnaamijkii socday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay uga baryaynaa in processkan uu noqdo mid oo guul keena dalkana si degan doorasho u gaarsiiyo maadaama dhammaan dadka Soomaaliyeed sugaan insha Allah taala in doorasho la galo waa la isqaba karaa siyaasadda laakiin waxa muhiimka ah in laga tashado oo danaha dalka laga hormariyo. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo dhankooda goobta ka hadlaya waxa ay sheegeen madaxweyne Dani oo la xusuusiyay maalmihiisii xamar maalmihii fiicnaa wanaagsanaa xamar mar ay aad u qurux badnaan jirtay insha Allah mar kalena waa soo qurux badnaan doontaa waa la hubaa taas marka insha Allah kulligaan xamar oo qurux badan oo aan cabsi jirin oo habeenkii la lugaynayo maaragtay ilaa iyo midnight-ka ayaan arki doonaa. madaxweyne Saciid Dani waa soo dhaweynaynaa waxaan u mahadnaqaynaa guddiga barnaamijkan abaabulay. marka mudane madaxweyne hadda waxaanu ku leenahay soo dhawow waxaanu rajaynaynaa inaad halkaasi fiican sidaanu la soconno u soo Puntland iyo maamulkaasi fiican maamulkiisii hadda gacanta ugu hayso u wado tan federaalka oo u baahan isku xidhnaanta iyo wadajirka iyo isla qaadidda dhismaha dawladnimada Soomaaliyana aad qayb ka noqon doonto hadda wixii ka dambeeya. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo dhankiisa goobta ka hadlaya waxa uu baaq u diray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland wixii tuuriyo aha annaguna heshiiskaanu ku jirnaa anigu kursigii xoogaha wuxuu transit ku soo yahay galmudug oo halkaas aan doorashada ku soo galayaa saaxiibadayada Puntland ku soo dooranaya ha kaan nabad galeen madax soo dhaweynteeda qayb bay ka tahay arrintaas waa la heshiiyey waa la wada heshiiyey waxa weeye hebel baa waa halkaas wax ka ahaa iyo waxbay noo sheegi jireen nimanka saaxiibadii dhahe executive-ka ah moogta qolyihii waa idiin dhaaranayeen bay marka haddaad noo dhaaranayseen xataa hal la isdaayo hadda ma garad gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaduqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo dhankiisa munaasabada ka hadlaya soo dhaweeyay dhammaan wufuudii ka soo qayb gashay shirki dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho si gaarana waxa munaasabadan ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. caawa farxad iyo reereyn ayay noo tahay inaan ku soo dhaweyno mid ka mid ah ciyaalka xaafadda oo runtii aan dhihi karno waa geed ka soo dhashay Muqdisho faafay laamihiisana hadda Garoowe iyo Boosaaso la harsanayo. gunaanadkii munaasabada ayaa waxaa halkaas khudbad dheer ka jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo munaasabadaani si gaar ah loogu qabtay xafladan qiimaha badan oo magaaladeedii mar labaad aniga oo mas'uul ah oo state mas'uulka ah la igu soo dhaweeyay tan iyo markii aan imid oo garoonka soo degay ilaa maanta waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Ahnaduqa magaalada Muqdisho runtii sida la sheegay xasuus iyo waayo iyo farxad bayna gelisay waan jeclaa dad badan oo jiilkayga maanta halkaas ku aragnay iyo dadkii hore waa ku faraxsanahay inaan wada qaadano habeenkan siyaasadda ka fogeyd laakiin mahad baa xoogaa nugu celiyay horta mahad waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo anoo saaxiibaday ku hadlay afkooda
heshiiska dhacay annagu kaliya maan heshiina heshiiska bulshada Soomaaliyeed baan u qaadnay dadkoo dhan inay heshiiyaan oo la iscafiyo kursiga uu mahad la soo cararay waa soo ceshan kartaa baan ku dheelahay hadda waxaan ballan qaadayaa hadduu soo noqdo inuu soo ku soo baxo hadduu galmudug yaalana waa ka daba tagayaa inaan kala shaqeeyaan halka sheegay waa saaxiib qaali oo muddo dheer aan soo wada shaqeynay saaxiibada kale uu hadlay oo xildhibaanada hadda ah annaga garanayna xildhibaan wax doon ah inaad garab naga heshaan maahane turunturooyin naga filan maysaan insha Allah farxii maxamuud yuusuf samnius TV muqdisho BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga payc